السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومحسن جنر برنامجكني وبرنامج كفاقدة عيارها haddaba waxaa la dheeray kulamo xiiso iyo xamaasad leh horyaalka aanan laga daarin ee Premier League waxaana dhigay kooxaha Liverpool iyo kooxda Everton kulankaas oo ku dhamaaday barbaro. Kooxda Liverpool ayaa mar kale loogu qasbay in dib loo dhigo hanashada horyaalka Premier League kadib markii ay derbi adag hor dhigtay kooxda Everton. Ciyaarta ayaa waxa ay ku dhamaatay barbaro eber iyo eber ah oo aan wax goolal la iska dhalin. Haddaba kooxda Liverpool ayaa waxay keedka ku soo bilowday xidiga reer Masar ee Mohamed Salah kaas oo qorshaha tababare Jurgen Klopp u suurtagelin waayay in uu keedkiisa ku dhameystiro Mohamed Salah kadib markii looga cabsi qabay dhaawac soo gaaray kulamadii ugu dambeeyay ee ay dheshay kooxda Liverpool. Haddaba kooxda Liverpool ayaa waxay imaatay garoonka aadka looga xibaartamo ee Merseyside ku caanbaxay. Everton ayaana labadii qaybood ee ciyaarta birta garaacday iyadoo Davies uu nasiibkiisu xumaaday oo labada fursadood ee uu ku leeshamay goolka Alisson Becker uu ku jiray haddana uu ka badbaadiyay tababaraha kooxda Liverpool. Haddaba waxaa kaloo kamid ah barnaamijkeena Sportska iyo caawa kooxda Real Madrid ayaa waxay la dheshay kooxda Real Sociedad horyaalka La Liga kulankaas oo Real Madrid hogaanka La Liga ay kula wareegtay ayadoo isku dhibco ay yihiin kooxda Barcelona, laakiin dhanka kulamada ay wada dheeleen labada kooxood ayaa wuxuu fursad u siiyay in ay 4 dhibcood ka soo qaadato kooxda Barcelona, sidaas darteedna ay kooxda Real Madrid hogaanka ciyaarta ay ku qabato. Haddaba ciyaarta ayaa waxaa la isla mari waayay kaamkii hore eber iyo eber, laakiin markii la isku soo laabtay ayaa kooxda Real Madrid waxa ay dhashatay 2 gool halka ay kooxda Valencia dhashatay 1 gool. daqiiqadii 68aad ayaa ciyaarta waxaa goolka koowaad u dhaliyay Sergio Ramos, goolkaas oo ahaa gool kulaad ama rigoore. daqiiqadii 69aad ayaa Real Madrid gool looga naxsaday, hase yeeshee waxaa goolkaas diiday arbitaraha. Isla daqiiqadii 70aadna waxaa gool cajiiba ka dhaliyay Karim Benzema oo ciyaarta ka dhigay 2 iyo eber inta aysan kooxda Valencia soo ceshanin 1 gool oo aan waxba u tarin. waxaa kaloo kamid ah asxaabi barnaamijkeena Sportska caawa aad ku maqli doontaan ciyaartoydii taariikhda soo maray kubadda cagta oo loo kala qaybiyay 3 dabaqad. Haddaba ciyaartoyda ka shafantay iyo ciyaartoyda aan ka shafin xidiga waaweyn oo booskay laga filayay laga waayay waxaana kamid ah Pele oo ahaa ninka lagu qiyaasi jiray ama loo arkay inuu ahaa xidigii ugu fiicnaa abid. sidoo kale tan waxaa booskiisii koowaad laga filayay asigana Maradona oo laga waayay, waxaana booska koowaad ku soo baxay kabtanka Barcelona ee Leo Messi ayaa ku garaacay laacibka ay aadka u wada xibaartamaan ee Cristiano Ronaldo oo asigana uu helay dabaqada labaad. Haddaba qiimeyntan cusub oo la sameeyay ayaa waxay muujisay in Leo Messi uu yahay ciyaartoyga kaliya ee godka loo aqoonsaday yahay, halka Ronaldo uu ku jiro liiska ciyaartoyda aadka u wanaagsan, taas oo ka hooseynaysa heerka uu xidiga reer Argentine yahay. Xogta cusub ee qiimeynta ah waxay ciyaaryahanadii waaweynaa dunida soo maray u kala saartay 6 qaybood, waxaanay dhulka la dhacday halyaygii reer Brazil ee Pele oo ay dadku qaarkood u aqoonsan yihiin in taariikhda laacibka fiicnaa aanu soo marin, halka ay sidoo kale hoos u dhigtay Diego Armando Maradona, ninka labaad ee ugu fiicnaa loo aqoonsanaa muddooyinkii qarniga labaad. Pele ayaa lagu daray liiska ciyaartoyda la buunbuuniyay ee wax aanay ahayn laga dhigay, waxaanay meel ku wada jiraan Neymar iyo Gareth Bale. dabaqada koowaad ee ciyaartoyda
waxaa qiimeyntu ay saartay Leo Messi, waxaana dabaqada xigta ku soo baxay ciyaartoy ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo, Diego Maradona iyo Johan Cruyff. Dabaqada saddexaad ay soo fadhiisteen لاعبين ay ka mid yihiin Steven Gerrard, Ryan Giggs, Didier Drogba iyo Robin van Persie, halka dabaqada afraadna ay wada galeen halyeeyada Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Ronaldinho, Ronaldo, Luis Nazario Ronaldo, Johan Cruyff iyo Chris Boyle iyo Didier Armando Maradona. Dabaqada shanaadna waxaa galay Giggs, Thierry Henry, Steven Gerrard, Alan Shearer, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic iyo Roberto Carlos. Dabaqada lixaadna waxaa galay Aguero, Didier Drogba, Virgil, Robin van Persie, David Beckham iyo Kylian Mbappe. Haddaba asxaabay, intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii faaqidaada ciyaaraha. Intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid ah, waxaa idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah.